Istanbul waa magaalada ugu dadka badan Turkiga. Sidoo kale waa xarunta dhaqaale, dhaqameed iyo mid taariikheedba. Waayadii hore waxaa loo yaqaanay Byzantium iyo Constantinople. Istanbul waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan adduunka. Sidoo kale Istanbul waa buundo u dhaxaysa Aasiya iyo Yurub. xarunteeda ganacsi iyo taariikheed waxay ku taalaa dhinaca Yurub. Ku dhawaad 3 meeloodoo meel oo ka mid ah dadkeedu waxay ku nool yihiin xaafado ku yaala Aasiya oo ka tirsan Bosphorus. Magaaladu waxay degtay meel istiraatiiji ah oo u dhaxaysa Badda Madow iyo Mediterranean-ka. waxaa la aasaasay iyada oo loo yaqaanay magaca Byzantium ku dhawaad 660kii. Magaaladu waxay u korodhay baaxad ahaan iyo saameyn ahaanba, waxayna noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan taariikhda. Magaca Constantinople waxa uu ahaa caasimada Cusmaaniyiinta ilaa 1923kii markii caasimada loo wareejiyay Ankara. Ilaa iyo hadda waxaa loo yaqaanaa Istanbul. Istanbul waa magaalada shanaad ee ugu weyn adduunka iyadoo loo eegayo dadweynaha magaalada ku dhaqan. Inta badan dadka ku nool Turkiga iyo Istanbul waa Muslimiin. Qowmiyadaha tirada yar ee degan Istanbul waa Kurdida. Sababta oo ah heerkulka dhexdhexaadka ah iyo qiimaha qolka bisha March ilaa iyo November ayaa loo tixgelinayaa inay yihiin waqtiga ugu fiican ee lagu dalxiiso Istanbul. Muddada u dhaxaysa bisha December ilaa iyo February waa xilliga ugu qabow uguna qoyaanka badan Istanbul. Istanbul waxay leedahay jawi degan, waxayna leedahay roobab caadi ah sanadka oo dhan. Xagaaga guud ahaan celceliska heerkulku waa qiyaastii 27 digrii inta lagu guda jiro maalinta iyo 18 digrii xilliga habeenkii. File heerkulka ilaa 35 digrii maalmaha ugu kulul ee sanadka. Jiilaalku waa qabow uuna qoyan yahay. Celcelis ahaan 2 digrii oo habeenkii ah iyo 7 digrii inta lagu guda jiro maalintii. Inkasta oo marar dhif ah uu ka hooseyn karo inta lagu guda jiro maalinta. tan iyo bartamihii 1990meeyadii dhaqaalaha Istanbul waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu koritaanka badan. Istanbul ayaa ka mas'uul ah 27% miisaaniyadda Turkiga, iyadoo 20% ka mid ah shaqaalaha warshadaha dalka ay degan yihiin Istanbul. Istanbul waxay mas'uul ka tahay 2 meeloodoo meel ka mid ah dakhliga cashuurta qaranka. Istanbul waxay leedahay dhaqaale warshadeed oo kala duwan, soo saarista badeecooyinka sida saliidda saytuunka, tubaakada, baabuurta iyo elektrooniga.